ولذلك baa waxay yidhahdaan min طabci الإnsaan aadanaha dhaqankiisa ama abuurkiisa waxa ka mida bay yidhaahdaan atadabdub sensidual inuu socdo weecweecasho bini aadamku bay yidhaahdaan dareemadiisa iyo noloshiisa inuu joogteeyo waa ku adagtay wuxuu doonaba ha noqdo shaqo ha noqoto mashaacirta iyo dareenka iyo ixsaaska ha noqdo nashaadaadka iyo activitygaad qabanaysa ha noqoto bini aadamku joogtaynta inuu waxaa joogteeyo wax fudud maaha soomaaligana isaga dhagaxba kaga adag maxaa loo joogtayn kari waaye kow waa mawduuc alimtixaan waa meesha laynagu itixaamay ee la rabo ma ku guulaysanayna mise waa ku dhacaynaa sidaa laynoo abuuray waxaana lagu talagalay in layna itixaamo aadanuhu wuxuu leeyahay shahwatu nafs waxyaa badan oo naftu ay jeceshahay waxaa kaloo ku xeeran shayaaiin اljini walins kuwa dadka lumiyo badan oo bini aadamkana ka mid ah jinkana ka mid ah bini aadam dadka lumiyo tiro badan ayaa kugu xeeran shayaankii shayaanka ahaa baa kugu xeeran haddaba intaasoo dhan si aad uga guulaysan lahayd baa isweydiinta leh waxaana laynaga rabaa inaan naftu inaga bixin ilaayo inagoo muslimiina mooyaane laba aayadood oo fi kitaab illahi ku yaala suurat ali cimraan iyo suurat albaqara ilaahay muxuu leeyahay fi suurat albaqara ya baniy in allaha اصطafى lakum الdiin falaa tamuutuna ila waantum muslimuun fi suurati ali cimraanna ya ayuha aladiina aamanuu اtaquu llaha xaqa tuqaatih walaa tamuutuna ila waantum muslimuun falaa tamuutuna iyo walaa tamuutuna ila waantum muslimuun ilahay wuxuu ina leeyahay ha geeriyoonina idinku aan muslim ahayn geerida we don't know garan mayno goora imanayso adoo sii socdaa gaadi ku jiidi oo wadnaha iskaa taagi oo maalmaad soo bukaan doonta garan maysa saaad u dhimanayso mar haddaanad garanayn saaad u dhimanayso macnaheedu waxa weeyaan noloshaada toosnow ha geeriyoonin baa lagu yidhi adigoo maxay aan muslim ahayn yay geeridu ku imani wacbud rabbaka xataa yaatiyaka alyaqiin ba fi suurati alxijrina ilahay leeyahy rabbigaa caabud inta geeridu kaaga imanayso haddaba maadaama ay noloshu sidaa tahay waxaynu u baahan nahay inaynu in badan ku xisaabtanno war ma toosan nahay in badan inu isweydiino aqoonta ah sidee loo toosnaada in badan isweydiino waa maxay asbaabta kugu dhiiri gelinaysa ama kugu xejinaysa inaad toosnaato weliba cajabta nafta waxaa ku tusi kara nabiyullaahi moxamed calayhi salaatu wasalaam oo ilaahay basharka ku ka doortaya ayaa waxay saxaabadiisii tilmaamaysaa umu salame iyo anas ibnu malik iyo waxa ay tilmaamayaan saxaabadii nebi maxamed ducooyinka nebi maxamed umu salama markii la weydiiyey gurigaaga markuu joogo waxa ugu badan uu nebi maxamed ku ducaysta waa maxay waxay ducadan soo socotay sheegtay anas ibnu malik wuxuu isaguna leeyahay yuksir nebigu wuu badin jiray inuu yidhaahdo maxay ya muqalib alquluubi habit qalbii calaa diinik ilaaha qalbiyada gegediyow ya muqalib alquluub ilaaha qalbiyada gegediyow habit qalbii calaa diinik ku sug diintaada qalbigayga buu nebi maxamed ku ducaysanaya ilaahu weecweecashadaygaa ilaaliya ilaahu isug sida badan habaadka iyo istiqaamadu isku macno dhadhow bay tilmaamayaan markaasaa saxaabadii waxay dhahen ya nabiy allahi aamanaa bika wa bima ji'ta bihi fahal takhaafu calayna waanu ku rumaynay adiga iyo wixii aada la timiba waanu rumaynay ma waxaad nooga cabsi qabataa wax miyaad nooga cabsi qabtaa wax kale wuxuu nebigu ku yidhi calayhi salaatu wasalaam waa su-aasha dad badan rag badan baa isle haddaad war diintana waad garanaysaa ilaahayna waad garanaysaa maadaa gaaloobaya ama maadaa xumaanaya wadaado badan baa dhulkan yimi oo is yidhi waa riyaad saalixiinka iyo qur-aankaba waad soo dhigatay ma gaal baa wax ku yeelaya rag badan baa libdhay oo aan lahaynin imika meel ay ku dambeeyeen sababta waa maxay naftooday kalsooni bideen waxay is yidhaahdeen war waad isku filan tahay
badda se markuu dhumbaday wuu isku filaan waayey markii badda nin waliba yimi isku filaanshihii waa la waayey saa daraaddeed bay saxaabadii waxay leeyihin ilaahay rasuulkiisiiyo waanu ku rumaynay wixii aada la timina waan rumaynay miyaad noo cabsi qabtaa nebigu wuxuu ku yidhi nacam ina alquluuba bayna isbacayni min asaabici illaahi yuqallibuha kayfa yashaa waa idin cabsi qabaa buu nebigu yidhi oo qalbiyada bini aadamku labada faroode allay ku jiraanoo siduu doona buu u rogrogaa siduu doona u rogrogaa waa maxay haddaad wanaagga u janjeersatana ilaahay waa kuu kordhinayaa haddaad xumaha u reebtana falamaa azaaquu azaaqa allahu quluubahum taa kugu dhacaysa markay weecdeen ayaa ilaahay qalbiyadooda weeciyey sidaa awgeed ayuha alaxiba bal u fiirsan nebi moxamed calayhi الsalaatu wasalaam ayaa ilaahay qur-aanka inagala hadlaya oo waxaa la leeyahay wain kaaduu layaftinuunaka can aladii awxaynaa ilayka litaftariya calayna gayrah waida latakhaduuka khaliila walowlaa an habatnaaka laqad kidta tarkanuu ilayhim shayئa qaliila ida laadaqnaaka ضicfa alxayaati wa ضicfa almamaat uma laa tajidu laka calayna nasiira subxaan allah waxay ku dhowaadeen baa ilaahay leeyihi nebi maxamedow inay ku fitneeyaan can aladii awxaynaa ilayk waxaanu kuu soo waxyoonay shayaaiin ljinniga iyo insigu inay kuweydaariyaan bay ku dhowaadeen litaftariya calayna gayrah si aada noogu kor abuurato waxaanu kuu waxyoonay waxaan ahayn hadday dhici lahayd inaad xaggooda usoo yaro weecatana latakhaduuka khaliila baa ilaahay yihi saaxiib bay kaa dhigi lahaayeen yani gaalada ilaahay wuxuu tilmaamaya waxay isku dayayaan inay ku lumiyaan haddii aad markaa weecato dhankooda u weecatana walan good waa lagu soo dhaweynayaa in qoyska kusoo biiray ayaad ka mid tahay baa la leeyahay ilaahay baa markaa nebi maxamed wuxuu leeyahy alayh الsalaatu wasalaam walowlaa an habatnaak haddii lala-yay inaanu anagu ku sugnay baa ilaahay leeyahy laqad kidta tarkanuu ilayhim shay-an qaliila waxaad u dhowaatay inaad in yar xaggooda u weecato haddii nebi maxamed ilaahay sidaa ka sheegay cidda nebi maxamed ka sokaysa maxaad ka fili sheekh iyo shariifba haddii nebi maxamed ilaahay sidaa uu ka tilmaamayo ciddii ka sokaysay nebi maxamed maxaad u malaynaysa ilaahay markaasuu leeyahy ida laadaqnaaka ضicfa alxayaati wa ضicfa almamaat haddaad shaygaa raaci lahaydna waxaanu ku dhadhansiin lahayn baa ilaahay leeyahy subxaanaه wa tacaala cadaab nololeed iyo mid aakhira iyo mid walba ood dhadhamin lahayd wax nooga kaa gargaarana maad hesheen haddaba ayuha alaxiba waxaa laynaga rabaa inaynu toosnaano oo ilaahay wuxuu ina leeyahy walaa takunuu kaalatii naqadat gazlaha min bacdi quwati ankaatha carabtu waxay sheegaan habar mooyine waalayd iyo in waxu dhinmeene habar bay sheegeen gelinka hore wax tidci jirtay xadhkay soo hi jirtay gelinka dambena shaqadeedu waxay ahayd inay furfurto marka maalin walba waa shaqo joogta ah gelinka horena waa tidcdaa gelinka dambena waa maxay waa furfurtaa ilaahay baa tii ugu maahmaaho ilaahay wuxuu yidhi walaa takunuu ha la mid noqonina kaalatii naqadat gazlaha min bacdi quwati ankaatha tii gelinkii hore tidicdaya toshay gelinkii dambena furfurtay taa ha ku biirina baa ilaahayna leeyahy subxaana wa tacaala ayuha alaxiba dadka barh baa acmaal saalixa sameeya dabeetana istus iyo ismaqashii iyo macaasi iyo kabaa'ir ku buriya qaar baa waddada saxa haya kadibna raadkoodii dib u raacuno munaafaqnimo iyo ridda ku dhaca walciyaadu billah waxaa isweydiinta leh toosnaantu waa wax adag weliba da-yarteenina dhib baaba haysataa intay dhowr iyo 10 jir ka yaryihiinna qadaadkaynu haynaa qur-aanka qayb malcamada tag qur-aanka qayb baynu ku wadnaa dhowr iyo 10 jir markuu gaadhana masaajidkaba wuu baalmaraa qur-aan qaybisiyo baabka iska dahay hadduu qaybayna waa ilaabaa haddaanu qaybina awalba waxba kama qaybin uu dhinac mara xaggay beledu ka taagantay marka nebi maxamed baa wuxuu leeyahy alayhi الsalaatu wasalaam waxaa dhici doonta wakti yusbixu الrajulu mu'mina ninku ay dhici doonto inuu waa beristo isagoo mu'mina wayumsi kaafira